بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن كل هذا حسن ظاهر ويس marka waxaan rabaa meeshaan fariin inaan u diro madaxweynaha maxamed cabdullaahi farmaajo ayaan ku sheegahayaa insha allahu tacaala. midda ugu horeysa qofba si uu arrintan oo kale u qaabilaa, anigu marka waxaan leeyahay duca unbaan aan sheegahayaa waan dirahayaa. ilaahay adigana ha ku hanuuniyo, dadkana ha kugu hanuuniyo, ayagana ha ku hanuuniyo. taas marka waa ducadaas weeye, hambalyooyinka qofba si u yaqaana. marka anigu hadda midda igu daran taas weeye. midda labaad, qolada oo qisaska qor-aana waxay yidhaahdaan markii qisa kaa dhammaataba mid ka culus ayaa kuu bilaabanaysa. marka haddaan anigu waxaan isleeyahay imtixaankii runta ahaa hadduu kuu bilowday. sababtuna waxa weeyaan laba arrimood oo adadag oo ama laba dhigdhiko ama laba buurood dhexdood ayaad ku jirtaa, oo midna waxa weeye korkaa haysato oo dadkaas hadda uun caalamka lagu sheego iyo qaab rabitaankooda, iyo dadka Soomaaliyeed oo wareer badan ku dhacay. adigaba sida aad tilmaantay, wareer badan uu ku dhacay oo itijaah kasta uu ka dhumay, oo laga yaabo wax ay isku waafaqahayaan inay adkaato. asal ahaan dad wanaagsan waa yihiin, adigana sida aad sheegtay, geesiyaala oo deeqsiyaala oo caqala ah oo maaragtay bahalkii maxay ahayd isjecel oo wada qaraaba ah oo hal qoysa oo wax walba isku waafaqsan, aan qabiilka xumo hadda shaydaanku unfuraha uu ku roga noqday. laakiin asaga laftiisa marta ahleeyay iyo maaragtay dadkii maaragtay hoggaanka u noqday ayay ku halaabeen. marka saas darteeda dhib badan ayaa hadda kolley ayay leeyihiin, oo macnaha dariiqii marka uu ka dhumay wax badanna ka dhumeen, oo markii horena isticmaalkii ka dhumiyeen, markii dambena maaragtay muxuu ahaa ayagii dabeecadaas qabiilku ay ka dhumisay. in marka laga soo rogo oo jidkii toosnaa lagu soo rogo ayaa wax adag noqon karta. ilaahayna waa fududayn karaa, allah fududey. marka labadaa dariiq oo adag ayaa aad ka dhaxaysaa, oo qoloba si uun maaragtay mucaamalaadkoodu bahalkii muxuu ahaa ay laga yaaba inaad ku dhibtootid, qaabka ula dhaqmi lahayd inaad ku dhibtootid ama aad ku dhibtootaan laga yaabo. marka allahan fududeeyana leeyahay. ayaga marka hadda maaragtay yacni taageerada aada aragtay waxaa keenaya laba arrimoodaa keentay sida aan isleeyahay aniga. mid waxa weeye way dhibtoodeen dadku, markay dhibtoodaanna yacni way rabaan maaragtay wixii isbeddelahoo yimaada ayagoon maaragtay waxa ku hareeraysan eegin ayaa laga yaabaa inay u xamaasoodaan. xamaasadaas marka waa meel oo dhib keenay. midda labaadna xooga ayaantii maaragtay 6 bilood ama 7 waxay ahayd mooyaane aada meesha joogtayna waxuunbay kaa maaragtay rajeeyeen markaa, iyo sidii kaloo lagula mucaamiloodo qaabdarrada ahayd ayadana waxa weeyaan yacni waxay kuu noqotay adigana nuqday kuu noqotay. marka taas marka
waxaa laga yaabaa waxa ay kaa anfacaysaa waa wax yar waaye, caadifadaas waxay kaa anfacaysaa wax yar waaye. marka maxay noqonaysaa marka waxa weeyaan meeshaan marka waxaa laga rabaa laba arrimood ayaa ugu waaweyn. mid waa mid si cilmiya in loo shaqeeyo waaye, si cilmiya in loo shaqeeyo waaye, bimacnaa waxa weeyaan cawaatifta markii aad shacbiga caadiga la hadlaysid waa suuragal, laakiin markii la shaqaynayo si cilmiya in loo shaqeeyaa daruuri ah. cilmigaasna rag umana ah oo maaragtay rijaal oo maaragtay aaminana inay leedahay waa lagama maarmaan, inay leedahay lagama maarmaan waa. marka waxaan rabay inaan ku dhaho yaysan kugu dhicin sidii cabdiqaasim ku dhacday. sidaan oo kale ay ahayd iyadoo la dhibtooday oo warlooryaal iyo balaayo iyo mooryaan caradii ay maaragtay ay dhibeen ummadii ayuu yimid oo lasoo doortay inta shir loo qabtay. sida runta ah dadkii si aan caadi ahayn sidaan oo kale loo soo dhaweeyey, si aan caadi ahayna loo soo dhaweeyey. laakiin maxaa ku dhacay marka? waxaa ku dhacay sidaan aniga isleeyahay waa sidaan maarta hadda aan kaaga digi dooneen. waxaa dhacday maalin intaan mar la kulmaa waxaan ku yidhi warniyahow waxaad yeelaysaa dadka kugu hareeraysan ama kugu hareeraysmi doonaahi waa dadka wax kaa raba, laakiin dadka wax kula qaban lahaa waxay waaxishoonayaan oo gadaalay joogaan. haddaadan adiga gacan togaalaysan oo aada adigu raadsan oo aada soo qabsanna de cunana kaa soo doonan maayaan. inay hadda ayagu isi soo taagaan oo yidhaahdaan anaa fiicanna waa ka xishoonaya. adigu marka haddaadan raadsan waxaan idhi maaragtay meeshaas waad ku jabaysaa, saasaan ku idhi. marka haddana marka sidii oo kale marka asagii marka maxaa ku dhacay? laba shay baa ku dhacday. waxa weeyaan sidaas meeshii aan ka tilmaamay ma uusan qaadanin, wuu yaraha waxaa ka xoog batay wadcigii jiray ka xoog batay oo nimankii warlooryaarka ahaa iyo wixii ku hareersanaa iyo mooryaantii dad u noqday. dadkii waxtarka ahaana asagaa ka baqay. marka dhibaatada marka halkaasi kaga timi marka waa socon kari waaye. marka khasabay noqotay marka maaragtay bahalkii maxay ahayd in dadkiina ay ka qalbi jabaan, asagiina qalbi jabo oo xataa markii dambe ku khatimay inuu habaaramo uu yidhaahdo balaayo madow kale allaha idinku sallido. ma aqaan hadeed laga yaabo maaragtay wixii in ay wax ka yimaadeen. marka kiiskaas oo fulanimo iyo iskugu darsan iyo bahalkii maxay ahayd bakhiiltinimo iyo maaragtay dadxumo ayaa dadkii maaragtay ku dhacday. marka adigana marka waxa weeyaan arrintaa marka aan ka baqahayaa waxa weeyaan hadda maaragtay bakhiiltinimo kuguma maqlinin, inkastoo saas aana kuu aqoonin. hal maraan taleefon ku wada hadalna u malaynaya markaad shaqada ka tagtay aan u malaynayaa. laakiin waxa weeyaan hadda bakhiiltinimo kuguma maqlin, laakiin waxaan kaaga baqahayaa baqdinaan kaaga baqahay. nin oo maaragtay amerikaan ahaana waxaa laga sheegi jiray inuu yiri wax laga baqo oon baqdinahayn ma jiraan, wax laga baqo oon baqdinahayn ma jiraan uu yiri baa nin kolley raggoodii madaxda ahaa ka mida. hadda maaragtay magaciisi ma haye, laakiin wax laga baqo oon baqdinahayn waa run. nabiguna ilaahay buu ka magan geli jiray. marka waxa weeyaan baqdintu waa waxa ragga dilo waay. baqdintu ragga marka waxa laga baqaa hadda waa joogaan ficlan oo dadkaana xoog badan kaana xoolo badan maaragtay baahi aadan maaragtay inaad ka kaaftoontay iska adag tahay kor kaa haysta. hoosna dad wada fuqara ah oo maaragtay dhib badan haysto kaa haysta. labadiiba marka waxa weeyaan labaduba baqdin waa keenaysaa, baqdin waa keenaysaa. laakiin waxa weeyaan waxa ugu fiican waxa weeyaan in ilaahayna aad kaashatid bahalkii muxuu ahaa aadan baqinna, kor iyo hoos midna aadan ka baqin.
marka taas waxa weeyaan halkaas aan uga baxo ta kale waxa weeyaan war kolleyba khudba maartay meel aan hadda ma taariikh iguma qorayn laakiin warka aan dhageystay marka kolleyba waxyaalo oo badanna runtii waa kugu waafaqsanaa waxna kolleyba maartay waa ka hadli doonaa insha Allah taala marka warkuna sida badanaaba waxa weeyaan waa qofka Soomaaliga ah ama akaademiga ah warka Soomaaliga ah warka waa yaqaan qof akaademiguna warka waa yaqaan soo u dhisa waa yaqaan mushkiladu marka waxa weeyaan waxa aad tiri meel marinteeda waa marka saddex mas'alo aan ka maarta khudbadaas aan ka xogaa ka tacliiqi rabay mid waxa weeyaan sida aad u sheegtay nimanka anagu aan reer waqooyiga yiraahno ayaguna Somaliland isdhaha laakiin Somaliland waa dal Soomaaliyeed waaye warkii isticmaalku uu u yaqaanay waaye waxaan u malaynayaa warka aad sheegtay inuu sax yahay oo hadda ka horna anigana waa sheegay waxa weey nimankaas laba shayba waa lagu dulmiyay waxa weey dawladnimadii ay keeneen waa lagu dulmiyay sida loogu dulmiyay marka kulay adiga markii ma aad sheegin laakiin sida loogu dulmiyay aan wax yar ka taabto marka waxa loogu dulmiyay markay dawladii keeneen meeshii la rabay laba dawladood in loo dhaqmo waxa loo dhaqmay qabiila lagu daray markaas waxa loo xisaabtamay wax la yiraahdo waana meeshay ka khaldantay oo asway ayshi meeshay ka khaldameen weeyaan waxa weeyaan markay dawladii ay heleen meeshay ka khaldameen ay ahayd oo markii hore intay Soomaalinimadii faafiyeen ayay markay dawladii keeneen ayaa qabiil loo rogay wax oo irir iyo daarooda loogu dhaqmo ayay marka irirkiya lagu dar afwan marka ayaga irirkiya lagu dar qabiil anta loo rogaya waliba qabiil aysan ayaku qabiil ku ahayn oo aysan qiimo ku lahayn lagu dar marka waxa ku garanaysa dawladda sida loo dhisay u fiirso ninka la yiraahdo Aadan Cabdullaah Xismaan Allahu naxariiste waxa uu sameeyay waxa la yiri waa irir waay Cabdirashiid Cali Sharmaarkana waa daarooda waxaad garanaysaa meesha nuqtada waxaad ku fahmaysaa markii dambe oo Cabdirashiid meesha qabsaday oo Aadan meesha uu ka baxay Cabdirashiid yimid ayaa marka waxa la yiri irir baahki maxay ahayd irir hal siiyo marka baashi markaas cigaal laga dhigay isagoo mathalaayo Somaliland ma mathalaayo wuxuu mathalayaa irir uu mathalayo warkaas u fiirsada Soomaali war taariikhiya waa irir uu mathalayo ma mathalaynin Somaliland ma mathalaynin laakiin waxay islahaayeen laba shimbirood hal dhagax ku wada dila ayay uga jeedeen taas marka dulunkaas halkaas uu ka yimid dulunka labaad wuxuu ahaa markii ay ka gilgisheen waxa weeyaan looma turin lamana dhihin bahalkii muxuu ahaa lama oranin nimankan ama garay leeyihiin ama waxa ay dhibsanayaan ha lagala xaalo lama dhihin waa lagu dilay si xun oo aan maartay raxmad lahayn waa loogu dilay dadkii kale oo xataa maartay ayagoo dagaalamo jabhadii waxay ku uga duwan yihiin nimankaanu dulunkii hore iska rogidiisii hadana lagu dilay jabhadii kale saasi uga duwan yihiin marka kiiskooda marka labada kiisba waxa weeyaan waa maartay in marka sida aad sheegtay maartay bahalkii laga tiro oo looga noqdo oo looga cudur daarto oo laga mago daruuri waay waxa iyagu cafiyaan maahan haddii iyagu cafiyaan soo dadka muslimiinta ah markii ay maartay wax kala galaan cafiska waa iskaga fiican yihiin ayaguna waa dad maartay gobonimada halkaas waa leeyihiin laakiin garawshuhu waa cajiib waaye in qof dadka loo garaabo oo maartay bahalkii loo tanasulo oo maartay loo muxuu ahaa la qiimeeyo waxoodii
وقيمة وين وانا واحد مارتي بحكي أو رالي نقول كرقف كصومالي يعني قب وهي هالكاس قبي كي جزاهم الله خير مركا أرنتاس وارنتي سي وناكسن أيام مارتي رنتي وقبوجي إن كيس كاس أتسا أفهمتد وأنا سليه هاي رجي كاهو الرئي كما أنا أركي وركاس كما أنا أركي سيدا رنتا جزاك الله خير هالكاس واكي أقدو عينا يا رنتي مد اللوات وحويان قابك أو مارتي وهالكي محوها شبابك ولا لو قبك شبابك واكو خلاف سنة هاي وانا كو خلاف سنة قابك اللوغة هالو شبابكنا وحويان وقاب عن إسليه هاي وورك أون عدو أميريو وعدو جود أميريو واي ور بهالكي محي هاد ور إسلامنا ماها ور صومالينا ماها ور سياسية ماها ور عقلية ماها دولة دوني مايان مار صح ماها وركاس لما كانت دولة دي دونايان لكن دولة دي دونايان دولة إسلام وان كوان وافقسنا هاي إن مارتي وح أي هالليين كله لكن وركا الدولة ما دونايان دولة ديد واي وركا مجرو دولة دي دونايان مكان لكن دولة إسلامي دوناي والله يا با مارتي تصرف كونه كحم هذا وأنا قلت يدو أن وافقسنا هاي إن مارتي وحبضا أي كهالليسيهن أين هالليان ووافقسنا هاي إن كستون أوجه هاي عالم كمارتي تاريخ ذا وذكرنا هاي وحويان ضد هب قاضى وحلين تودا أبدا هدفك حتى هدو وناكسي وحلين تودا أبدا كما دولة ضد كاس كما دولة ومعروف واحد مدة لبعض وحويان دولة والله دريرة دين والله دريرة والاسكو وافقسية ضل كان أتكتم دا أمريكا وذا أقنا هاي نكالي يلا لبننا وقو خطر صندتك أي آمين سيهين وجورج واشنطن iyo ninka la yiraahdo Ibrahim Lincoln dadka ay aaminsan yihiin dadkaas ka mid labaduba dagaal ay maartay dagaalkii miduna wahdadii markii ay maartay koonfurka ay damceen inay go'aan markii maartay dadkii oo la xoreynayay waa kuwii ka codamay inay goostaan wala diriray waxyaalo ay ku aaminsan yihiin waxa weeyaan nima xoreyntii maartay odoomaha ee dadkii Afrikaanka ahaa ee la gumaysanayay iyo مارت الدجالكي وكجلي وحدة وطنكو إني إلى شمتو مركز الدجال الدولة ديت هي الدجال مارت بحكي محيط ضدكي كدولة حمينا هي أو مارت بحكي محيط كالجراي ضدكي لودي بوات كتقانا لودي جورج واشنطن أمير إنجليزكو بلاش ومسين جواني ماذا وهذا بتاعه كسومري وحكي كسومري وات قرنيسا ها مركز الدولة والله درنا ضد مارت بحكي محيط دين والله درنا لودي والله درنا عالم كانوا والله يخان لودينا واسكو جيران وحان أنيقو حتى أنكمل هاي وهذا أنيقو ومحرني موقتها يعني ضبع حماننا ومحرني دنبنا ومحرني الدولة دولة إسلام دوني ديد واي وحان وحرنا مركا ماشي وحان ربا وحير إن أنت أبتيه وحويان بحكي محوها حوغا إن هذا قتل من الروا كل يبان ضد مارتي وردا كيس كاس إن هذا قتل من الروا يعني لحدن يسدد دي أرنتان صوب بالله يسكا قتل من لحدن يسدد دي ومحمد سيد ما قبصن وضن لحدن يسدد دي صوب بالله أنا أقول الثانوية مع عندي سنة كوباد وثانوية أنا أقول ومارتي بالكي سكول كسره أيام صوب بالله وكيس كان مارتي مركب كونتون سنة كوسي دوه تضبط تنجيرنا هذا وحن حرنا هذا وحوي كيس كاس إن الملجأ سيوه يسد مركب تلاذو يسكا غلطمين ومارتي يسكا غلطمين لكن مركب وحوي لكن وحيا ربنا أو هدد مارتي بحكي محوها ومدة إن لا إلاليو ومدة أدودة لميسي أما إن لا إلاليو ودت كده عقاشة يدت كده مارتي بحكي محيط علومدين يدت كده مارتي واحتركا يدت كده تاريخ لها يدت يعني إن لا إلاليو ووافقسنها قف والبا وكاهري ما ده هل الدلادة شبابك وكو خلاف سنة أما ضدك النعفي قال ضدك أمدها اللي قال لها وكو خلاف سنة لكن كيس كان دين هي الدولة إن لو ديرو وركاس ورسحوا أيضا مركب قاب كذا إن مارتي ورك اللوج بديو أو إن لقلا حاله كيس كاس لقلا حاله أو لقلا ورمه أو اللي يراهدو مارتي سيد ربطان سيد وحور ربطان أن مارتي وحال
يعني مركو كيسكو ما سهلنا ساسنا مارتي بهالكي محيهد كما ضماناي marka kiiskan waa in laga wada hadlo waaye dawlad islaama dadku rabaan wadaadado dhan saas waaye anaaba ku sheegaaye nin muslima khiyaar uma lahan inuu gaalnimo doorto iyo inuu islaam doorto wax ka dhaxeeya male islaam inuu doortana waxa weeyaan waa inuu xukunka ilaahay uu siiyo waay wama lam yahkum ma anzala fa ulaikum kafirun fa ulaikum zalimun fa ulaik bal wuxuu u yaqaana waxaan kitaabkiisa aan lagu xukumin jaahiliyo u yaqaana afa hukm al jahiliyyah yabquna buuran ma waxay doonayaan xukun jaahiliya ay rabaan marka warkaas iyo khaldamin waxa weeyaan nimanku dawladay doonayaan laakiin dawlad islaam ay doonayaan labadaas ka kooban dawladoon islaami ah khaldaadka kale waxa weey waa xisaab kale khaladaadka kale xisaab kale muaamaladu waa xisaab kale laakiin dawlad ma doonayaan iyo waxay rabaan lama yaqaan warkaas ma jiro walaalayaal yaana khaldamin kiiskaasna wadaad oo dhan ma haduu suufi yahay waa kuwaas maartay qolada ahlu sunnada sheegata waa kuwaas maartay bahalkii muxuu ahaa hadda dadkii dhama ku noqda ayaguba ma dhahdaan waxyaalo kama dhahdaan ayaga waa isku nooc waay sababtu waxa weeye wadaad oo dhan wuxuu aaminsan yahay ama muslim oo dhan wuxuu aaminsan yahay inuu kitaabka ilaahay wax ku xukumo waa saas waay kama leexan karo marka mid aamusan iyo mid hadla iyo mid dirira kulli waa isku mid waay dariiqaas lagama leexan karo mana diidi karo wadaad kama leexan karo wadaad ma ahan muslim oo dhan kama leexan karo laakiin waa nala dhumiyay markii nala dhumiyay anagina aan waxaan rabnaa maartay meelihii inaan maartay si dhumidii wali inaan ku socono allahna soo celi tan kale walaalo waxaan rabay waa halkan oo wadaniyada walaalayaal wadan caqiida ma caqiida wadankan dhulka ilaaha iskale kulligiis allah ilaahay isaga dhulkan meel joogaba isaga marka ilaahay waa sheego in al-ardh lillah yurithuha man yashaa min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin saas orna ilaahay dhulka isaga leh adoomihiisa ciduu doono oo dhaxal siiya waana kuwa muttaqiinta oo ilaahay ka baqana ciribta dambale saas waay marka waxyaalahan marka intaad nala kugu bedelay aqeedadii islaamkii nala kugu bedelay walaalayaal warkaanu anaaba idin sheegaye meeshii la oran jiray hararay uga soo kaceen dagaalkii 77kii anaaba ku sheegay hararay uga soo kaceen ana ogaa hararay uga soo kaceen sababtu waxa weey waxaan ogaanay qofku fiiri naftiisa iyo maalkiisa ugu jecel yahay adduun naftiisa iyo maalkiisa uu weynaya maxaa badiil u amar yani waa raba aqli in la helo moog maxaa badiil u qofkan maxaa u bedelaya naftiisa adduunka ugu jecel yahay iyo maalkiisa ugu jecel yahay labadiiba waa bixiyay maxaa badiil u amar بدل ميلو كهلايون الله هين مجرد بدل ميلو كهلايون الله هين مجرد الله نإن دينتي سقف كان قل انتو بحكسين عاي وحال ربا موقتا إن موقتا قف ضد مسلمات يا أنا هاي ضد مسلمات أنا هاي ده محا قف كانوا يا قف كان أبال مرين هاي سيلو أبال مرين هاي يا أبال مرين هاي حق أبال كس حقيقي كهلاي ميلان الله هاي كهلي ما الله لو وحكا لو وحلوغه هلو ودنا اللوغة ما هلو قبيلنا اللوغة ما هلو وحلوغه هلا يا إن جد كيس الله دقالو وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن الويديو اللي يري مارت يا في سبيل الله يا مركز يري من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله نيكي أقدر إلهي كلمة دي سئنا كرنغطه أيا في سبيل الله نيكي أقول انتو إلهي وحسيناي واجي سمن كيان على سمتر مر أن لها أو نو يمدون كهليني أيام مركا وحا والرياض لها دعي مركز oo maartay markaas hal dagaalamo waa markii la soo jabiyo ruushkii balaayid soo galay markaas hal dagaalamo hal wuxuu dadkii u boori marka halkii marka waran qaatay markaas iri dadkaan waxaan 9 bilood dagaalameen hal dagaalamo meeshii mataale way dagaalameen guushi way waxa laga hadlay guusha yaa bixiya mar
askartii ciidankiyaa ka jawaabay waxay dhaheen ilaahay baa bixi ilaahay yuu siiyaaneen fiiri meesha fiiri ma wadaniya oo wadan Itoobiya la yiraahdo collaya wadan Soomaali la yiraahdana oo saaxiib u leeyahay miya ma yaali waa ciidankiyaa ka jawaabay waa iska soo horjeedna cali samantikiyo kulli waa la wada joogna marka waxaan yiri ilaahay marka ma qowmiya oo qowm la yiraahdo xabashi oo la dagaalsan yahay qowm Soomaali la yiraahdana waa jecel yahay miya ما يالي يوصي يا مر إلى يساك الجوابان وحان وركاسان يري وحان إن ها ولا ينصرن الله أعوذ بالله من الشيطان ولا ينصرن الله من ينصره بوي ها إن الله قوي عزيز إلهي نكي بارت أقرقار إلهينا أودي سو وكيح أقبضون ويا يوم تلمان كبحيمة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور شنت أفر تاس هره يمدها سو عاقبة يهو جوابان كوة تدي مارت نلك قبصدان سلاد أوغوة زكاة بحيوان أمرك وناقة إسفروان حمانت إسكرهبوان ماشي هسا مركا أن حوغا أن مارت عيدا كي حوغا مركا أي كو مقعيسيو بينو وحي دعها إلى يقانين وبلايدي مارتي عيدن رجو مارتي سراكيشة خاصة أي سمين أيانو معاصدها قرنكي أي مارك هالكاسي أي كك يعني مارك هذا الخطرة أي مارت بوق أي كسر أيوة مارتي نمكي عيبه دي تلمامها معناها مارك وحنوجي جدي قفك إلهي سبحانه وتعالى ماشى قفك وحكيه لايو ومركز واجد ده حتى وعد وركاسو ور عن شيء ربو أركان شيء ربو ما مارت الصومالي دورهم كم عام سجودها وقولي كانه واسلقريت سيد محكمة دي بيتقول وكانه لقريتي ساسو كلوي هاي جوش وي كانه لكن واحد جي شيء نفسيات كان كهالله نفسيات والله وحن أرجعني سراكيل والله أنا ماشي أنكو عرضي لها وإي علامة سنت ها إلهي بأقل بدي ذات دجودا كم مقلة ها معناها وحوي قفكي وحوي ماشي ونفتي في قدي لها وإيبين لها رجلا هذا كنت جاي مارتي شمكم كبضن مركا لكن معناها وامحي نفسيات كان كهالله نفسيات كسيدي ودعي جرين أن شيء جاي ها مركا وحوي قف بني آدم كاهي أبالو ربا حوله سي مالكي سي أبالو كربا أبال كاسن عد بحنكرت إلهي وان إلهينا وحا أو كب حياء وحويا جدك إلهي إنو قفكاس أو كل انتوا أو شهادك قاتوا عدك لأو إلهي ماشاس أو وحكسيا مجرته مركا وحويا معناها وحن ربا ددك يعني مركي استعماركم نقبصدي أي مارتا سي وليه يجعلك إسلامك يسوهي وإنما المؤمنون إخوة أهيد أيانا لك مبدل انتنا لك قويي مركاسا ننكي مسلم هاي وضن كاس أدجوكتا أنجوغيني وأجنبي واه وولالك إلهي كدغي ننكي ولالك إلهي لغدغا أيغو أجنبي كدغي وحيالها جدا عي وح خطر واه مركا وحيالها إنان كحرونا أي تهي أي كمت هاي وحيالها إنان قبصنا أي تهي هديرنا وليب وحد دي شيء جاي dadkii waxaaba loo wada noqonaya qolo walba diinteedii u noqonaysa kuwii siiqaha hatta maartay hatta wasaaradii kuwii maartay bahalkii madaxa duubnay ay madax ka dhigtaan kuwii kale oo yahuudi hadda waa tan u doodayso dawlad yahuudeedan rabna waxa weeyaan bahalkii tamaam maalin dhaweed wuxuu maartay asagu inuu ilaahay taageerayo maartay bahalkii uu ku hadlay ana dhageysanay marka dadkii yaaba u wada noqonaya diimahoodii annaga marka tii ilaahayna siiyay oo aan ku sharafowno weligana inaan ka cabsano oon ka baqno ayadii oo aan ka cararno oo weliba waxaan ku sheegayaa ilaahay kuma sheegay Soomaalidu dhihi jireen aan tilmaamahaya labadii nin oo hadda dhexda aad uga jirtay oo ilaahay ka soo bixiyay labaduba fiiriya waa maartay ceebayn kala waba jeedo laakiin واقع رمها وأن كهالله لبضوا باللبج المشيخي هاي إن الشيخ أحمد يعني الشيخ محمود وحكروا كدر لبضوا بحركات إسلامية كلمة هذه لبضوا بحركات إسلامية كذا ماشي كب قطي حق جوا ماشي كب قطي حق جوا
ويلا يجري أيام مارتي بالك محوها اللي يراهدو عبد الحكيم فريد وحول ور حسن رجع أيام ليش الجو مركزاني وارنتا لكن لما بدي لما صعد وارن رجع ودن ورجع نسنقاني وحركات الإسلام قال سلسلة ودي جرني ويه لكن ما بدي لما صعدان هاي وهو محامر كيناي وحا كيناي وحوي مركي وارتن نسوا الله فأنساهم أنفسهم مركوا وقفكوا إلهي كبقوا إلهي نوا خذلانينا وكتجاية ولا كتجاية ها مركا كبقين إسلامكي أو كعررين أو إسكف القين مركا إلهي نكتي ها فرماجو اسكو الدنيا ها مارتي بالكي مركا هذه قال يكون إحساس يا سكون إحساس وحويا إلهي هكبقين جد كيسها هكبقين عدنا هكبقين وحويا مارتي جد كاسة كوكو ليسنيسا والله هداد قادد والله نكي قادد قوليسنيس ماذا مكة هالله يعني مارتي بالكي محوها والد لي حبسي يكون عي وحسب لك هالله ولدي قادوا والله يجي قوليسنيس مركو قدميس والعاقبة للمتقين هذا إلهي كبقام هذا إلهي كبقام ده واحد رب سميانو أي مارتي ميكابيليين أي نقضان مارتي وقاروا أي محمديين مركا وحان ربي مركا كيس كاسنا وحان ربي هالكاس إنا جيان ربي مركا ولالو مركا وحويان إلهي هكو هنونيو دعادي ينكو ختمها هيا المهلكي محوها إلهينا ومهلكي محوها أيغانا دادكنا الله كو هنونيو وأديغانا مدهانو دادكي إلهي وكو هنونيو الله كارب أيغانا الله كو هنونيو وحيوي سبتو وحويان هدان إله أديغانا الله كو هنونين وحوي هذا وخسار هدان أيغي الله كو هنونين وخسار كله ماشي أسبحان رمالير إلى تابته والله وحوي وحام ملاينا يا محمد سياد بره إنا قفنا كشكي سنة ودني نمديس وحي كلو مارتي أو أهواجا لكن ودني نمديس إنك ما شكرا رجعني من الوارو قريها ملاينا أنا كل وأو قرنا رجعني لكن ماشي أسجن كبق حاجة هاي وحو كبق ذي هذين مالنا واحد دقيقة وركيس وأنا جيت يبكي يا جماعة من كاسو وهذلاي أول سجود توسيستي وحويا ما ملاينا كذب لنا أركي كمار ساعد هذا لكن محاك صوب حياة وركوا هدوسا كنت توصنين ووضع الصحة وحويا ما فائدة ماشي هذا غير لغتي ماشي هذا غير الله ده سبوا جدي مركا واحد وجد أباري سوولة تعامله ولي ومارته وحسوسنا أباري سوولة تعامله وحسوسته ها سفركم مغنا وحسوسنا سفركم مغنا مركز أبارته دعاء مركز وأصغر مغنا وحير قف صومالي مانته إنه مارته بهالكي أو مارته أو أبار كهارو ما قرانين ولا وقع وحيد دعاء عندي كوكال ما يصير مارته وكم هتناي لكن موقفك على هالله موقفك أو قاطي موقف شريفة ولا جاي مارته بهالكي محيهد إن يجارته يرتهي بمارته قف بتصاص ومارته ومامول كربايس كيرتهي لكن ما حدا عي مركي مالد وركي سد جايستي يوم حنكير ورسيده هذا هو ناكسن إيه ضدك وحنا يكون عكرت إلا ضدك وحوي ما بدي حنا مارته شوعيها تلقاتهم إلهي ولا عررايو وإلهي ولا طورايو أما إيش كصبح ما حدك مركي ما حك صباحي مركزا وحري الله وحوي مبدأ وحما يقاتل وإلهي بمارته كو قريفاي وإلهي بمارته أنا وحبو قرني وأفر ساعة ضودا مارتي أفر ساعة ضودا ميل تاجنين هبين ويل مارتي بالكي محاها تقرسو وحن كان الله إلهي مجرى يواجرى وحيا له مبتغ وحن خطر واي وحن خطر أي إلهي مجرى يواجرى أيا لقاها الله هي ها قرآن كي الواحد قد باي وحوي ضدك علماء اللي واحد قد باي محاملك محاسوب حاي محاسوب حاي مركز رجعني ماذا يورك وناكتن يكل يوضنيد وحبها دان إلهي للجيرين والله إني سسعوني هذا بوايدي شيء والله إني سسعوني رجعني ماذا وهم رجوعها لكن وحاد جبريل مر هدان إلهي سبحانه وتعالى الروح رني ولا جباية لا شك في ذلك ولا جباية فرنتاس مركا ولا لو وحان ربي إن كسو قارسيو الله كو مارتي الله نقول أنفعه لكن مارتي بهلكي محايا هذا نقول ضدك ما هكرضو
mana مجعلنا إن مارت حمينا مجعل لكن وحويا هدد مبادئ وخطر واي مبادئ وخطر واي مبادئ وحان وليبة يعني التصور كيان كو شيغا يا فيريا تصور كيان كو شيغا يا سيده حالده تahay aan ku sheegay sa aniga u tasawuray hadaad ragtahay adiga ka soo ceshan door laakiin wax sa aniga u tasawuray waxa weeye baabuur raran waa warka maartay aan maartay mitaalka aan ka bixiyo xoga maartay baalkii edebaan ahaa marka tamthiilaadka aan xogaa iskaga roon marka waxa weeye baabuur raran oo niman rartee oo maartay alaabu saaran tahay oo waardiye saaran yahay oo meel u socda baabuur kaasaan waxaan ira maxaa laga bedeli karaa waxa laga bedeli karaa darawalka bis darawalka laga bedeli karaa darawalka ama koofi u gali waa maartay mitaalkaas waagi shariifkan sameey ama koofi u gali ama niteen u xir adaa yaqaan waxaad rabto ku samee darawalka baa laga bedeli karaa itijaahi lama bedeli karo bahalki alaabtiina laga bedeli karo bahalki waardiyeena lama bedeli karo kiiska walaal aan aad maartay ay xaaladu tahay saas waay baabuur marka xamar inta laga raray bahalki boosaaso u socda inaad maartay kismaayo u celiso haday iska suura gal tahay raggaas raganimadaas aad leedahay ilaahayna ha ka dhige meesha laga rabo halkaas waay ha meesha laga rabo halkaas waay baabuur raran oo waxa weeyaan bahalki kismaayo u socda xamar ka tagay oo bahalki maxay boosaaso u socda ina kismaayo soo celisaa rabo ha kismaayo soo celisaa rabo marka haday ka suura gal tahay hadii kaleeto walaalo waxa weeyaan bahalki maxay ahayd qaabkaas marka aniga waxaan iraahdaa buudigana ka fuuli ma darawalna ka noqon ma taasaan iraahdaa marka saasaan diisay laakiin dabiica kale waan leeyahay oo maartay wixii wanaaga inaan qofka uga kaalmeeyo ama kala kaalmaysto waa wax oo iga suura gal waay laakiin hadaysan maartay aysan mabaadi' ku dhisnayn waxa weeyaan nafsiyaadkaygan aqbali karin mabaadi'dii aan raba intaasna aan u soo dhimanayay hadaysan meesha aysan ku jirin nafsiyaadkaygan maartay xamili karin aan aqbali karin aan ka wada aan aqbali karin marka xabsiga waa ka bixi karin qof kasta laakiin mushkiladu waxa weeyaan waxaan iraahdaa waxa weeyaan mabda'an u xiranahay aniga uma xirin shakhsigayga uma xirin mabda'an u xiran mabda inuu fulo iyo inuu san maartay bahalkii maxay ahayd inuu fulo iyo in aan asaga aan u xayirnaado labadaas waxa weeyaan waxa ii roon in asaga u xayirnaado haddaan asagii helana waa alxamdulillah marka waxa weeyaan waxyaalahaas waaye oo waxaan rabay maartay sida saxa ahi inay saxay aniga ila tahay aan rabay maartay inaan wixii aan kaaga kaalmeyn karaan kaaga kaalmeeyo shucuurka maartay dadka dibka iyo ay haystaan iyo shucuurkooda waa la wadaagaya waa la wadaagsanhay laakiin wixii markaas aan isleeyahay ama waad dheer tahay ama waad fahmaysaa inaan kuu soo gudbiyo ayay ila noqotay marka wixii ka anfaca adigay ku taala marka wixii ka anfaca adig ku taala allahana maartay sida aan markii hore aan ku soo bilaabo warka allah ku hanuuniyo dadkana allah kugu hanuuniyo ayagana allah ku hanuuniyo saddexdooduba saddexan kala dhicin waay in allah ku hanuuniyo in ayagii aad ilaahay ku hanuuniyo ilaa hadhow waa la is eedaynaya markii ilaahay loo tago waa la is eedaynaya quraanka dhan ma sheegaya waa la is eedaynaya adinkana maartay balaayada noolaha adinkana dhumiyay hadhow markaas qolo walba qolada kale eedaynaysa quraanka dhan ay ku taala quraanka dhan ay ku taala marka waxa weeye hadhow waa la is eedaynaya marka anagu aan hanuunsanahay waa idin hanuuni lahayn ay oranahay annaga hanuunsanayn maartay hadaan hanuunno aniga waa idin hanuunin lahayn marka hadduu qofku hanuunin wax ma hanuuni karo haddii uusan ayagii hanuuninna waxa weeye asagii meel cidla ku soo dhacaya haddaan maartay bahalkii maxay ayagii aysan maartay hanuunkii qaadanna oo aysan ogolaanna ayagii asagii waa kala go'ayaan marka labadiiba saddexduba ma kala dhacaan marka waxa weeye waxaan u malaynayaa inay duca jaamica tahaan u malaynayaa waan kaaga dooro sida runta aan kaaga dooray ilaahayna ku dooro marka intaasaan rabay inaan ku soo gudbiyo kulligiina maartay iga raalli ahaada insha Allah ta'ala xogaa maartay warka waa yaraha ku kululaada sida badanaaba marka raalli ahaado warkayga xogaa anigana maartay kulayl ku jiraay
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.